soo dhawaada asxaabta dhammaantiinna waxaan rajaynayaa inaad barnaamijkan sheer garaysaan asxaabey soo dhawaada axmed deeq waa fiican tahay bro shariif bro waa ku salaamay axmed waa ku salaamay khaliif waa ku salaamay ilmaad reyaalo barnaamijka noo sheer gareeya fadlan waxaad iga codsanaya inaad noo sheer garaysaan barnaamijka first of all inaad barnaamijka noo sheer garaysaan idinka codsanaya ilmaade reyaalow waxaan rajeynayaa inaad barnaamijkan sheer garayn doontaan dhammaantiin soo dhawaada barnaamijka noo sheer gareeya dhammaantiin si aan barnaamijka aan u bilaabano dhammaantiin barnaamijka noo sheer gareeya asxaabta qaaliga waxaan rabaa inaan ka hadlo geerida ka dhacday magaalada Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud oo ay ka geysteen askarta maamulka Somaliland ama askarta Musabbix waddanka soo wacay maxay naga tahay askarta Musabbixi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan waxaan ka tacsiyinayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ardaydii iyo deegaankii iyo dadkii iyo dalkii uu ka baxay walaalkeen Ibrahim oo ku geeriyooday magaalada Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud Ibrahim warar badan ayaa waxa weeye isla dhexmaraya qaabka loo dilay Allahu naxariisto horta dhammaan taas waxaan uga tacsiyinayaa qoyskiisa qaraabadiisa waxa weeye cidiisa iyo dhammaanba deegaanka uu ka baxay iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay si gaar oo kale waxaan uga tacsiyinayaa ardayda jaamacaddiisa iyo waxa weeye fasalkiisii uu ka tirsanaa oo iyagana waxa weeye la dareemaya xanuunkaas caawa haysta walaalkeen qoyskiisa la dareemaya kulli dabcan Ibrahim wuxuu ku geeriyooday magaalada Boorama waxaana lagu dilay jaamacadda Camuud saad ogeydeen Boorama baryahan waxa ka jirtay propaganda fara badan oo aad loo buubuunay oo dabadana ka riixayeen maamulka Musabbix ay dabada ka riixayeen taasi oo ah in khalkhal la geliyo gobolka in ma garanaysaa laga abuuro beeno iyo wax aansan jirin waxaan idinku xaqiijinayaa horta yarkaas Allahu naxariisto tiisay maanta ahayd laakiin waxa weeye waa la dilay si bareera loo dilay si kasa loo dilay si cadotinimada loo dilay si aan bilaalantinimada aan ku waajin baa loo dilay sababtoo ah arday jaamacad dhiganaya oo wax maanta uu sita huba aysan jirin oo wax weey buug sita oo jaamacad ka soo baxay inaad madaxa ka toogataa waa argagixisinimo halkii ugu weyneed waa argagixiso qofka dilay simply waa argagixiso qofka ardayga dilay waa argagixiso ciduna hal muhiim maaha askariga dilay qabiilkiisa anoo garanaya muhiim maaha laakiin waxa weeye muhiimadda loo dilay waxaa ka socota dhibaatooyin badan ayaa gobolka ka socota haddeer hospitaalka Boorama oo ma garanaysaa aan la hadlay dhalinyaro joogta waxa loo diiday inay cidi gasho waxaa lagu soo rogay in ka badan 5,000 oo ciidan ah oo booliis iyo military iyo maxay oo afarta koorkaan la iskaga wacay yaa hospitaalka lagu soo rogay waxaa la dul dhigay hub military saanad waxaad moodaa tukaraq halkaasi oo ay ku jiraan laba wiil oo kale wiilka dhinta ma laba wiil oo kale oo dhaawac oo mid uu dhaawac halis uu ka soo gaaray bowdada ka jabay oo xabad laga dhuftay oo dhiig bax ugu jira hospitaalka oo dhiig loo raadinay hadda dhalinyarada la hadlay ugu raadin dhiig baan u raadinaynaa ay ugu dhaheen ayaa wuxuu yaalaa hospitaalka dhalinyaradaas maanta jaamacadda dhiganaysay ee ubaxa ah ee deegaankoodii waxa weeye dhulkoodii wax ku baranaysay laakiin gobollo kale ka yimiday ee hilow jaamacadda ay u qabaan iyo waxbarasho jacayl iyo waalidkooda ay ku soo tabceen ee dhowriyo waxa weeye 10 jirada ee 20 jirada aan gaarin ee xabadda kibirka maanta lagula kacay waxa la yiri doqonta ushi agteeda ku dhufo haddii garan weydana gogo u gey horta waxaa jira dagaal aad u ballaaran oo lagu hayay gobolka in muddo gobolka waxa loo diiday 2014 inay yeeshaan dekada lugahaya dhaqaalihi shacabku iska ururiyeen la hor istaagay madaxweynaha xilliga joogo hor istaagay talabaad waxa la hor istaagay oo la xiray airportkii magaalada Boorama tan saddexaad waxa la xiray jidkii isku xirayay Looyacado iyo Boorama oo ay ma garanaysaa ay iska kaashanayeen bangiga Afrika iyo waxa weeyaan iyo dawladda Soomaaliya jidka wala jooji waana la xiray tan ugu dambaysa
jaamacadda camuud sababta loo geeyey calanka cidda geysa baa idii sheegay habeenkii aan ardayda ay nimanka soo dhigayeen calanka Soomaaliland habeen maalnimadii calanka Soomaaliya 16 Juun maalinkii ku xigtay calankaygu waa kan iyo challenge wax noocaas oo babaqaya beena ay dhalinyaro reer Boorama lahaa meesha wareejinayeen ninka calanka keenay wallaahi oo bilaahi tullaahi waa wariye reer Hargeysa calanka keenay calamaanta waday ee yimiday waxa la ii soo diro wallaahi aan ku dhaaranayaa receiptkii lacagta dahabshiil looga soo diray markuu magaalada imanayay hoteelku deganaa iyo meeshu xafladda ku hay iyo meeshu xafladda ku qabtay sababta waxaa soo looga hurinayo dhibaato ah ee Boorama caan buluuga loo geenayo maxaad garanaysaa jaamacadda camuud calan loo wareejinayo ee la rabo in dadka la isku diro la isdaba wareejiyo sababta calanka magaalada Boorama jaamacadda agteeda waxa lagu gubay bridge jaamacadda marka la soo dhaafay ayaa calanka maantii lagu gubay meelaan xaafada ka fogeyn baa lagu gubay sababtaas oo dhan waxay tahay jaamacadda camuud waa jaamacadaha ugu weyn haddaysan ahayn tan ugu fiican jaamacadaha Soomaalida oo la isla wada qisay ardayda jaamacadda camuud dhigata waa ardayda Soomaali ka yimaada Soomaaliya oo dhan waxay u badan yihiin ardayda ka yimaada gobolada Puntland Sool ha haato Sanaag ha haato Nugaal ha haato Gaalkacyo ha haato waxay u badan yihiin ardayda Puntland iyo ardayda waxa way ka soo jeeda gobolada sida Galmudug iyo Puntland ha u badlaadaan ardayda Puntland ee beelaha harti ama warsangeli hadaan ma jeerteen hadaan ama dhulbaanta hadaan ardaydaas waxa ay soo geliyaan dhaqaale jaamacadda camuud xaqiiqatan waxaan la dafirkan waxay soo geliyaan dhaqaale magaalada guriga kire kaga degan yihiin hoteelay degaan hoteelay ku tiirsan qaarkood cunto ka cunaan qaarkood waxa way guriga ka dhisteen waxa way si halkaas ay ugu bartaan qoysaskoodii baa qaar soo dejiyeen dhiman waxa way dad badan oo asxaabnahay oo Mareykanka jooga kuwa halkan la jooga qoysaskoodii oo ka soo rareen dhulkaas waxay waxbarasho u keeneen magaalada Boorama waxayna soo geliyeen dhaqaale waa dhulkoodii waa deegaankoodii waa dalkoodii waa ummadoodii waa shacabkoodii waxay ku baranayaan laakiin ujeedada tan maanta taagan waxa weey waa reer Boorama cid hada gobolka oo dadka kale degan waa reer Boorama tijaabo lagu wado waa meesha ugu dambaysa isha dhaqaale ugu dambaysay magaalada Boorama soo gashay waa jaamacadda xaqiiqatan ujeedada in meesha isku dir iyo dagaal ka socdo waxay nagu xaqiijinayaan madrasa ujeedada meesha ka jirta ardayda jaamacadda camuud askarta jaamacadda camuud ilaalisa hal askari oo deegaan ka soo jeeda kuma jiro hal askari oo deegaan ka soo jeeda ama Boorama ka soo jeedo ama degmooyin kale ka soo jeeda hal askari oo gada bursiya ha waxa qarnaya kuma jiro hal askari oo gada bursiya kuma jiro sababta in dadka lagu dilo oo wax way isku dir iyo balaayo meesha laga shaqeeyo hal askariya kuma jiro jaamacadda Hargeysa ugu weyn madaxweynaha jaamacadda jifadiisa ayaa ilaalisa jaamacadaha dalka dhan wada qaana askarta deegaanka ilaalisa askarta xaafadaha ilaalisa askarta degmada ilaalisa jaamacadda camuud hal shakhsi ah oo ilaahay abuurtay oo askariya oo deegaanka ama beelaha Samro Siciid ama Bursiye meesha degan kuma jiro askarta waxa laga keenay Sanaag waxa laga keenay Burco waxa laga keenay Baran waxa laga keenay gaar adag adigu meelahaas ee laga keenay kontakii dhalinyaradii ee lagu xiray calanka Soomaaliya maalintii dowladda Boorama maqlisiin 22 kamida waa reer Puntland waa dhalinyarada beelaha harti oo xaq u leh inay calankooda qaataan deegaanka ay joogan waa deegaankoodii laakiin waxa weey xaq waxay u leeyihiin inay calankooda qaataan inay dadkooda la dabaaldegaan inay rabitaankooda ku shaqeeyaan inay waxa weey waxbarashada meesha ay ka bartaan waxa weey calankooda lacag bay ku dhigtaan waxay soo geliyaan dhaqaale waxay soo geliyaan hanti waxay ka kareysteen guryo waxay ka digeen hoteelo lacagtaas ay meesha geliyaan waxay xaq u leeyihiin inay sida bini'aadanka u noolaadaan oo calankooda ay qaataan oo dadkooda la dabaaldegaan maaha dad la haysto waa dad maamul leh waa dad nidaam leh waa dad sharci leh waa dad isku filaasha gaar ma sida Boorama ma xaq waxay u leeyihiin inay si xurriyada oo xor ah u dabaaldegaan dadkaas ka yimiday ama harti ama Puntland ka yimiday ama habar gidir ahaadaan ama dir ahaadaan ay ka yimiday Galmudug iyo ka yimiday iyo Puntland ka yimiday dhalinyarada 22 kamida waa reer Puntland lagu xiray kontonkii dhalinyarada lagu xiray waxa la geeyay magaalada inta laga qaaday Boorama ayaa waxa la geeyay Gibli saldhiga Gibli ku xiray Boorama waa gobol weyn waa magaalo weyn waxa leedahay saldhig waxa leedahay maxkamad
waxay leedahay jeel waxay leedahay xarumo waxa weeye meesha ka dhisan intaba waa la dhaafiyey gabili baa lagu shubay 22kii arday ee iyaguna laga soo xiray laascaanood ayagana berbera la keenay lama geyn meel sool ka tirsan lama geyn meel sool u dhow tug dheer u dhow xataa lama geyn berbera la keenay iyagana arrintan waa arrin horta si toos ugu socota reer Boorama laba midun bad noqonaysan bari jaamacadda waa la fasaxay kullina hadda video waxa soo wadaan maamulkan jaamacadda Camuud ee fadhiidka ay soo wadaan baa jira oo buhubahay oo laga sheekeyn doono oo la oran doono askarigu waxa weeye marxuumku askarigu la dagaalay askarigu maxay ku sameeyay qorigu la qabsaday intuu ku sameeyay beeno la soo hagi doono baa hadda la duubiyoon arkay wax ka jiraan ma laha haba yaraatay wax ka jiraan waxay yiraahdaan askarigu wax calan oo yarka uu ku dilay ma jirto Allah u naxariistay okay labada dhalinyarada la socotay ee calanka finaanta isboortiga Soomaaliya xiran ee ustaalka yaala maxay uga hadlay kan loo tacsiyay labada dhalinyaro ee calanka finaanta isboortiga Soomaaliya xiran ee ustaalka magaalada Boorama yaala ee aad askar militariga ku ilaalinaysaan ee waxa weey harti ee reer Puntland maxay igan looga hadlay ya maxaa looga hadlay tan hadaba waa mid u taala dadka deegaanka mareebo horma hadana ma gudbursaadaan si doonaan waa tijaabo nooc walba dadkan waa lagu sameeyay noocaan lagu sameeyay dadkan ma jirto noocaan lagu sameeyay dekad lama ogola airport lama ogola wada lama ogola hawad naqaska ay soo jidilay wax laga xilna wax loo ogol yahay habeeraatay dadkaas waa dad xabsi ku jira way jabeen dadka ma gafaysta ma qajid qofka ma gafaysta lacag loo horeeyay ma qajid dadkaas gobolkaas ku nool waa dad jabay oo ma gaf u xiraysan waxaana soo wicina dadkan maxay ahna soo wacayna calad ku dhacdayna ana soo wicina dadka horta wadanka marka la marka loo jiro maxay dadka soo wacan dadkan horta maxaa garab waa dad ma gaf ku xiraysan oo meesha ku baay ina kaas meesha ku dhintay ee reer Boorama ee reer Allah u naxariistay reer Puntland waxa weey waa nin dalkiisi ku dhintay waa nin dadkiisi ka dhintay waa nin kibir lagu dilay waa nin edeb darre lagu dilay waa nin qabiil iyo cuqdad iyo xaraan lagu dilay haddaad tihiin dhalinyarada meeshaas degan waxay u sheegayaan odayaasha kulley tabtoodiba inta hotel soul isku keeno iyo hotel race baa waxa weey faanta isku wada nooc loo qasi doona odayaashii ana qaani ya wallahi buu yiri ninkii reer ana qaani ma guuro tabtoodiba inta hotel soul isku keeno ama hotel race ayaa faanta isku wada nooc ama tuhuuda ama tu casaan la wada siin doona shaan isku wada nooc ay cabi doonaan laasay biri hor doonaan taxsi maanu sameeyna kana aynu wada dugsan oran doonaan laakiin dhalinyarada waxaan u sheegayaa dhalinyarada damiirku leeyahay sheegaya haddii maanta aad qaadataan in walaalkiin lagu dilo korkiina oo la idinku bahadilo oo dhalinyarada ardayda ma bariba wata jaamacad la fasaxay oo dhalinyarada reer Puntland iyo reer Soomaaliya iyo reer mataqaana ee Soomaaliya oo dhan ay meel kasta ka timaada ee jaamacadda timaada loo diido oo laga wax weey si dadka looga baqdin geliyo oo looga sasiyo meesha looga kaxeeyo waxay idinkeedu ku noqonaysaa bar foolxun waxay idinku noqonaysaa liidnimo waxay nagu noqonaysaa dhaqan xumo bari waa inaad ka dhidhigaan waa inaad cadaysaan waa in la soo xaqiijiyo askarigaas wixii yarkaas wixii lagu dilay waa in askarigana wax weey soo qabataan oo soo qabataan aqli gal ma noqonayso bari ka maalina 10 gabdhood oo kala lagu kufsan doona warninka aqbalay in konton walaalihii wax weey nin reer kale intuu ka haysto uu saldhig ku xiraysto ilmaha inuu ninka dhigin ilmaha inuu meed ka dhigin dadka kan waa dad la tijaabiyo nooc walba laga laakiin waxa baa qudraya dadkaas reer Puntland ee ay ardaydu ka dhigtaan iyo reer galmudug ardaydu jaamacadda dhigtaan ilmaha reer loo dhigeysta meeshaas dhalinyaradiinu safe kuma haystaan dadadii ilaaliyaana meesha aanu kuma ogi xaqiiqadii sheegaya warka laabashada iyo beenta kuma fiicna dadkaas dhalinyarada ugu badan ee dhigata jaamacadda Camuud waxay ka soo jeedaan Puntland ilmaha reeyaalow dhalinyaradii naas saad ugu talinaysiin idinka idin taalaay dhalinyaradiina siyan meesha haadi waraabay idinkaga cunin taas waa fariinta aan u furayo dadka reer Puntland ee jaamacadda ay ardaydu ka dhigtaan tan labaadna waxaan leeyahay reer Boorama ishii ugu dambeysay ee kunka shilin idinka soo galayay iyo dhalinyaradii walaalihiina ee jaamacaddaas wax ay aqoon ahaan iyo amni ahaan idinku soo iyo walaaltinimo iyo meel aan dadka laga cusuriyeen iyo meel aan wax weey aan kala lahayn faqash iyo qurmis aan isku eryin kaliya idinku yimiday haddii hortiina ciyaalkii lagu qorqowraco ciyaalkan dad bay ka dhasheen dad baa dhalay dad bay ka dhimanayaan wax weey waxay idinku tahay liidnimo
waxay idinku tahay khasunaasnimo waxay idinku tahay nacasnimo anu u malayn maayo in meeshas ad weligiin wax ka dhiidhii doontaan ama wax dhihi doontaan waxa laydin ogoliya haba yaraatee ma jirto next day oxygen ta in laydinka xidho anaaba amrayba oxygen ta caadi hawada in laydinka xidho anaaba amri laaba haddana awoodley laakiin waxa weeye arrinkaas jaamacadda camuud ceeb baa dul hoganaysa professor Salebaan Cawar iyo asxaabtiisa ceeb baa dul hoganaysa waana meesha gobolku ka dhintay oo ka go'ay meeshaas hadeer sheeko been ah ayaa la soo abaabuli doonaa ardaydu berri waa kacsan yihiin waxa weeye ardaydu mudaharaad berri diyaar u yihiin jaamacaddii berri waa la xidhay waxaana la geeyay 2,000 oo ciidan jaamacadda lagu rogo 2,000 oo ciidan ayaa lagu rogo dadkiina ree awdale halkaas deganow haddaad maanta ku qanacsan tihiin in maalin boqortiina lagu dilo shalabaheed yar calanka suraya in lagu dilay magaalada Buuram 2014 shalay 2016 2015 ciyaarihii lagu qabtay gobolka waxa la afar dhalinyaro baas lagu furay magaalada dhexdeeda baas lagu furay garoonka waxba meydaan dheen ilaahay baa dee duufsaday ilaahay baa qaat unadii ilaahay ma xariisto unadii hooyadiinba wasa unadu waxay taa ka sheeganaysiin waxaad dadka ulay marina waxa weeye haddaad dhimanayso dadku yidhahdeen dhareerka la isku duwaa dhareerka ayaa la isku duwaa haddaad dhimanayso waxa weeye meeshan ama u madax bannaanaada oo xaniyihiina fuula ya ama naas soo samaysto fuaad may kabiyo macdaalika noqdo anu wuxuu intaa dhaafsan idin dhaho ma jirto meeshan u madax bannaanaada maamulka meesha jooga ilaah baan idinku dhaashay dadka inay magafi gacanta u galeen waxay idinku xaqiijinayaan maamulka meesha jooga wallaahi uusan bara saabku xataa iyaga ma bara saabku xataa waa loo soo diray bara saabka iska dhaaf taliyaha qaybta iyo taliya ku-xigeenka booliska gobolka marka laga reebo ciidanka meesha jooga 99.8 waxaa laga keenay Burciyo Hargeysa iyo Gabil yaa laga keenay dhammaantood si u dhayin ciidanka meesha jooga war dadkaas dadkiina Puntland iyo ka soo dirsanaya ardayda ka soo dirsanaya Puntland iyo Galmudug ka soo dirsanaya sidee dadkaas dadkan idin arka inaad faqash tihiin inaad idin arka cadow tihiin inaad tihiin al-shabaab idin arka sidee baad ugu aaminaysiin ciyaalkiina cid idin damiinatay cid idin ilaalisiyo cid idin dhowrta meeshaas ma dhex joogto absolutely dadkaas anu kuma ogi dad inta waxa ka danqadaan maanta dhalinyaradooda wax soo qaban kara ama wax soo dhicin kara ama wax iska dhicin kara ma arka meeshaas ciyaalkiina ka ilaashada ciyaalkiina uma korinaysaan uma dhalaysaan inuu nin qayrkiina madaxa bastool oo xabad baas kaga furo oo aa ka madaxa kaga turtilaan midixdii marka soo barbaarisaan ee soo korisaan ee jaamacad gaarsiisaan in hortiina lagu toogto ciyaalkiina uma dhalaysaan ciyaalkiina ilaashada meeshan jaamacad ma taalo ciyaalkiina ilaashada meeshan dhaqaalaha idinka gala dhaqaalaha idinka baxa ciyaalkiina ilaashada naf iyo maal ku wada waayina meeshan qolyahan waxa leey haddaad ku qanacsan tihiin in gabadhiina inta halkan laga qaato maanta waxa weey gobol kale lagu soo xiro askari waxa weey qabo u arkaba gabadha inay faqashtay uu kufsan karo xilligu doono wuxuu doonana ka yeeli karo haddaad ku qanacsan tihiin in ma garanaysaa askari kale walaasha loo dulkeeno jaamacadda ku ilaaliyo haddaad ku qanacsan tahay in ma garanaysaa hortaada wixii martiya timaado lagu toogto haddaad ku qanacsan tahay salaadiintiinni inay ma garanaysaa hoteelada ay tuma yihiin oo qaybtaada iyo maanga isku wada eeg inta loo qaso wax weey barta ay ku marqaansan yihiin hadda waa nasiibkii haddii kale waa inaad degdeg iskugu timaadaan waa in qurba joog ay shir degdeg ku dhawaaqaan waa in afarta koora kaarna dhaqaalaha qurba joogta soo bixiso waa in qurba joogta North America kuwa Ingiriiska kuwa Scandinavia kuwa Jarmalka iyo jooga Sacuudi iyo jooga Carabaha waa inay shir degdeg iskugu yimaadaan waa in arrinta laga waxa weey laga hawl galo dhalinyaro firfircoon baa joogta gobolkii hadeer dhalinyaro waxaan diidan baa joogta kuwa calanka wada haystay baa jooga kuwa dagaalamay dhidhiya jooga laakiin meesha odayaal iyo siyaasiyiin bay ka dhimatay odayaal iyo siyaasiyiin bay ka dhimatay qolyo waxa weey Hargeysa fadhiyo oo waxa weey siyaasiyiin sheegto wasiire iyo wada ku xigeenka baarlamaanka ku xigeenka Muusaan ku xigeenka wasaaradda biyaha ku xigeenka wasaaradda kalluumaysiga digirta iyo caana koostada ku xigeenka wasaaradda maraq digaaga iyo nigisanta ku xigeenadii meeshaas joogay ee badnaa kulligood nimcayaasiin bay noqdeen kulligood mid ku soo xaadira ma jiro nimcayaasiin bay noqdeen kulligood
baasaboor bay qaateen marka haddana waxaad maqli doontaan warbixintu waa saas yarkaas allaha u naxariisto naxariis janna allah ka waraabiyo deegaankiisa dadkiisa eheladiisa iyo ardayda uu ka dhintayba waxaan uga taxsiibaan uga dirayaa ilaahay naxariis janna ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto dhalinyarada labada ah ee dhaawacan ee hospitaalka yaalana ilaahay iyagana ha u boogadhayo ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo dhalinyarada reer boorma iyo daawanaysa waxaan u sheegaya inaad u shubtaan dhiigga dhalinyarada u tagtaan aad dhiigga u shubtaan dhiig baa loo raadinaya hadda wiil dhalinyara oo tafta ka dhaawacan dhiig baa loo raadinaya oo xabad lagu kala gooyay tafta oo waxa weeye ambalaas ka soo qaaday jaamacadda oo hospitaalka weyn yaallay dhiig baa loo raadinayay inaad tagtaan inaad dhiigga u shubtaan ka xanuunsan maahay kuwa noole idinla jooga ee idinla degin inaad dhiigga u hurtaan inaad gobonnimadu liin macaan liin baa lagu siini waa lagu xidhi waar liin lagu siiyo iyo xarig waa waxa ugu yara gobonnimo ku heli karto waxa lagaaga sheekeynaya xarigu meel baa qol baa lagu xidhaya soma qol baad seexanaysaa dhaxanta kaa celinayo weliba liin baa lagu siinaya biyaa lagu siinaya iyo qol baa lagu seexinaya baa lagu hanjabaya dad baa intaas u soo goday dad baa u soo dhintay dad baa u soo madhay calankan laanteed sheegaysana xaaraantaana buurama lagu sameeyey dowladda inaad sheegaysaana ee madaxweyne ku-xigeen waxa weeye ina shaqaale jawhari baa ka mid ahaa dadkii buurama ku aasaasay buurama lagu aasaasay heestan calankeed sheegaysaana allah u naxariistay cadfad xas sheekh muumin baa sameeyey ninkan fanaanka ee cabdi xuriye aabihi baa sameeyey oo nin jibriil oo soo samaroon sameeyey wixiiba midna qacan iguma jirto ولا عيدا كبدينا يلين كرين ولا كوا ركيدان معمول كرين ولا كوا بوليس كيدان معمول كرين ولا مالية بيدان هيسن ولا ريم جودين هيسن ولا ريم دبي بين هيسن ولا صدق حزب بين هيسن ولا صدق حزب لا صدق حدود كحيين بين هيسن ولا صدق حزب صدق حدود كحيين كود صدحات بين هيسن ولا تلي كحيين بين الهين ولا وحيدان لهين دكت ولا وحيدان لهين ايربورت ولا وحيدان لهين تشيت ولا وحيدان لهين بيو ولا وحيدان لهين لايت ولا وحيدان يجوجن دلير ولا وحيد يجوجن دد ولا واحد اللي تشوي كرن مرتي what the hell is going on guys what the fuck is going on warkaygu ama weydu ku dhici ama waxa weey kan cadur dhadhoodu ma dhacsana leeyay dhaga alla waaniya waansana oo meeshan waan hore waxba looga tiri waay oo shan nin oo ganacsatadii magaalada ugu weyneeda jidka lagu gowracay shan socota jidka lagu gowracay oo berbere ka soo qaatay bariis iyo daqiiq ay galaameyn jireen oo boorba ku geli jireen jidka lagu gowracay gabdhahoodii waa kuwaas safiyatu sumaasha loo dambeysay intii kalena waa kuwa maanta gabili baa xalay hay'adda xuquuqda aadamaha oo fadhida hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland baa waxay tiri gabdhaha xaaladoodu halis ku jirtaa boorma ku xiran ay ku xiran gabili ku xiran gabdhihiina waa kuwa ku jira laamba soo qaadansan inaad meeshan xor wahaataan inaad magafaa iskaga jirtaan oo dadku bilaadanka ee Soomaaliyeed meelaha degan maamulada leh ee dadka magafaa ku jirsa lacagaha loogu riyo lacageedii soo ururiyaan oo idan dhahaan ilmaade rayaalow adaha waxa weey lacagaha loo ururiyo dadkaas meesha laga saaro warnimaade rayaalow dadka la jooga ee jaamacadda dhigta ee martida ee magaalada degan ee magaalada u soo guuray ee magaalada waxa weey inay nabadgelyo iyo u soo raadsadaan waxbarasho iyo caafimaad u yimid magaalada haddii sanadoodu ku agnoolaan karin waa intaad soo istaagtaan waxaad tiraadaan walaalayaal in ma damaanad qaadi karno oo taayadii baa ma damaanad qaadi kar laanaay ya sababtoo go'aan nikama gudoomiyaha gobolku wareerkiis madaxweynuhu wareerkiis taliyaha booliska wareerkiis kamilitarigu wareerkiis wasiirka arrimaha gudaha wareerkiis kaarimaha dibadda wareerkiis xisbiyadu wareerkiis siyaasiyiintu wareerkiis baarlamaanku waa 82 labiyo toban bad ku leediin guurtidu waa 80 bad ku leediin wasiiradu waa 20 saddex bad ku leediin wasiiradu waa 20 saddex bad ku leediin ku-xigeenka arrimaha marqa kan digaaga kan xoolaha kan xanaanada baastada kan waxaasad leediin ku-xigeenadii nimcada yaasiin noqdayna waxa weey u yeedha war tashi iskugu laabta tashi fadhiga ku xiga ilmaade rayaalo iskugu laabta waxaan dhaqan rageed maaha dhaqan islaam maaha dhaqan bila aadan ma wallaahi wa billaahi wa tullaahi yeeyda iyo xayawaanka ka liidatan hadda anigu xaqiiqadan hortiina ka sheegaya anigu waxa weey nin wajigiisa intuu qarsado meelahaas waxa weey dadka profile kala soo saartaa wax ka daba dhaama dadka ka caaytumi aniga saadonto ay karta yaatami karta saadonto waxay dhigi kartaan laakiin xaqiiqadan idin sheegaya xaqiiqadu waxay tahay jaamacaddiina camud wala ilaalinaya nin baa ku ilaalinaya gobolkaagi nin baa ka talnay taliyihii matid ku xigeenkii matid
كي أفراد كي صدحات كي سناد كي لحنا متي عشور بيحيه دولمنيه اللي دلي باتهاي لما ميد بان نقونسان إنا كدي ديدان إنا ديش كده إنه نو وضا ديش أتكو جرتان اللي دكو يقان أنت وحب دحية أنوان أنت نكو شيغون نكو مقرنسا نكو روايديو مجرتو haddeerna waxaad dhegaysan doontaan warar been abuur oo jaamacadda intay soo duubtay iyo kan maayirka meesha u fadhiyay intay soo duubdumaan ay dhihi doonaan iyo taliyaha booliska ay dhahaan Araweeli iyo Baradhi iyo Salman Baradhi doonaan waxa weeyaan taliyu kayari wuxuu afdhaafay maxay mobile buu doonanayo waxa is afdhaafeen askarigii maxay ku tuureeno askariga iska cabiyo askariga xabad ku tuureeyo bartiibay kaga dhacdo way kaga fakto waxay kaga fakatay ma jirtay madaxu baas kaga furay waxay kaga fakatay ma jirtay madaxu baas kaga furay dhammaan bulshadaas reer Puntland dhalinyaradaas ka soo jeedaan dhaawaca anu ma garanay labada dhaawac ma garanay laakiin soo baari doona dhalinyaradaas dadka reer Puntland waxaan leeyahay laba dhalinyaro oo idinka kamid ka dhintay ayaa dhaawac hospitaalka Boorama yaal hadaad garanaysaan qoysaskoodii in maareeyaal u sheega fadlan dadkaas dhalinyarada ardayda jaamacadda dhigata kulli way daawanayaan dad badan bay daawanayaan garanay dadkaas jaamacadda dadkaas dhaawaca reer Puntland dhalinyarada harti hospitaalka Boorama ku taala dhiig baxaysa ha loo sheeg reerahoodii ha loo sheego inta dhimatay ninka dhintayna Allah u naxariistay dadkiisi ha raadiyaan xaqiisi ha raadiyaan yarku ma jeerteen buha reer Puntland buha qabiilaan waxaan maleenayaa inuu cali Salebaan laakiin ma garanay laakiin ma jeerteen iyo Puntland iyo waani xaqiijinaya Ibrahim baa la yiraahdaa ilmaade rayaalo Allah u naxariistay kaasi raadsada xaqiisi dad nimanka kale waxaan dhihi karay dhahay idinkan waxaan dhahay qoliyaha kale ee waxa weey maamulkii waxaan dhahaa meesha aniga nooga dhex yeelan sababta marka dadka mustaqbal meesha kale wax ka rabto ama aad waxayna hagaagan rabto dadku waxood leeyihiin ama wax weey wax ka dhaxeeyo ayaa la dhahaa wax naga dhaxeeyaa beerata misto ayaa la dhahaa ilmaade rayaalo wax weey sidan tan indhahan oo kaana haybalqaa ka hebel baa qaldan qabta wuxuba wax weey wax heshiis waxay ku yihiin in dadkan cagta la mariyo afarta koona kaarna gaaskiga laga jiro marka ayagu talla doorashada ayagaas kale ayagan ku ixtiraamaya aad bay idin salaamaya asxaabta qaaliga meel kasta dunida Afrika joogtaan kulay barnaamijkan fadlan share gareeya gaarsiiya si dhalinyarada dhaawaca ay familigoodu uga soo qaataan hospitaalkaas una daaweystaan dhiig bax ayuu yar kamid ku sugan yahay magaciisa ma garanayo booda laga toogtay wuu yaalay dhiig baan loo raadinay dhalinyaraan u diray oo dhiig u soo shubi rabtay military baa loo dul dhigay waana loo diiday waxaan maleynayaa dhiig bax u dhiman doonaan ilaahay ha badbaadiyo baan leeyahay dhammaantiin waxaan leeyahay shacbow warnimay isku duubnaado oo maafiyada iska qabta please maafiyada iska qabta